الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، waxa ay ku saabsan tahay kelmadeenani في فضل الدعوة إلى الله. إلهي xaggiisa dadka loogu yeero bishan Ramadaan la yiraahdo waa bil qulubta dadku muslimiinta ay soo jeedo oo ay khayrkana u qoyan tahay. marka walaalayaal hawlaha ina sugaya ma aha kaliya inaynu cibaadaysano oo nafteena aynu amal fallo, laakiin waxa labaad oo ina sugaya sida aynu nafteena u wanaajinayna inaynu dadkana u wanaajino oo aynu ugu dadaalo sida aynu u hanuunin lahayn. qofku meel kastaba ha joogo. waxa labaad oo kelmadan aynu ku dooranay, dadku waxay hayaan waqti badan oo in badan oo kamida bulshada way fadhiyaan oo dadka muslimiinta ah kamida ee waliba aynu isku laqadanahay guryahooda qaar fadhiyaan, qaar shaqooyinka ka fadhiyaan. marka faraaqa iyo jaaniska faraha badan ee la hayo maxaa lagu buuxinayaa? ilaahay subxaanahu wa tacaala marka aynu dhageysano suuradda gaabana suuratul casr wuxuu tilmaamay bani aadamka inta khasaaraha ka badbaadaysaa waa cidda dhowr tilmaamood leh. والعصر إن الإنسان لفي خسر. بني آدم كل ما أنت خسار ودحده وجراه. أفرتنت المامود الصوص عضا عدة لجاه له خسارها الدنيا كآخرة ويكن بدجلية. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ودد الله الرمي إيمان كلي أنكو أجانين عمل في عنا سمينيا. لبضع الرمود وحي شيئا قفكو نفتي هجاتي أصلح نفسه بالإيمان وبالعمل الصالح. إلهي نور رميي إيمان كسوحي وفري عمل ونكسن ولا يمادنا وسمي بمعنى أصبح صالحا وحن نقضي قف ونكسن محاسوق يا مركا لابد أن يكون مصلحا وأنه نغضامد وحنفذية وناقة ونفتي سوسمية وأنه ضدك وجود قاي وناقة لجر مدى. مركزوا لها أنت كبود دينين كليه سخساره هذا قبض بدو حراعي والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. حقنا ويصدر دارمين صبر كنا ويصدر دارمين. يعني هذا وحوي الدعوات بيفديان وحي كود ذالين ضدك سوها قاتشين لهاين. مركز لبضع حلبة إنه ياله لبضع الريموت أي إنه ياله. استاد رادد كلمة إنن وحي كوصاب سنتهاي أنت ورا وحي نكسو هاد لين آمنوا وعملوا الصالحات. أنت نمك كانوا كهاد لين أنا وحوي والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. والحق سدين ودتك وجارسينا أي صدر دار ميا هي حق هلا جارسيو. إذا مركز دعوة وحوي ضدك الدين تإلهين يسوق على الله باقه كوان إسلام كهين. إيا كوا مسلمين تشجعنا استمساك لفره. inay diinta si wanaagsan u haystaan oo cabadkii ciyaarta ay ka ilaaliyaan iyo dheeldheelka oo islaamnimadoodu run ay noqoto islaamnimo saxiixa la yimaado oo xaaraanta iska daayo oo munkarka iska daayo dambiga iyo macaasida oo wanaagga noocaas sameeyo. idan markaa waajibkaasi ma aha mid culimada qura ku eeg iyo aqoonyaha ka diinta dadkoo dhan bay Ilaahay waa faraya. wad'u ila sabiili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. أمرك وحي لهاي وكل هذا يا قف كستاء الشهادة الإسلام. النبي قال لكم ابن عليه الصلاة والسلام سكلوا هدنا إلى هاي ودقايو وحيب بها النبي كواب ترسنا إيه منهج كيس أيا إلى هاي وفرين الدعاة إلى الله تذك الدين توجيه ريان مية مجالية بلدية بادية انتبه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ضدك واحد كنت هذا أنا طريقة وكا أنا ضدك ويري طريقة إسلام لماذا كل جينا ما هي ومن اتبعني عدة الراعي إنها وش هو هيسا
marka adigu ma tahay ciddii nebiga raacday haa hawshu way kuu taallaa wax sidaa doonaysa baaqa u jeediyo hawshani waa hawlaa nebigun ku egayna adigana kuu taalla innagana inoo wada taalla wuxuu qur-aanku mar kale ina barayaa howlaha adduunka dadka u yaalee la qabto kuwa ugu muhiimsan ee ugu wanaagsan inay ka mid tahay ama tahayba dacwadani waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin waman axsanu qowlan oo yaa ka hadal wanaagsan dadku way hadlaane oo waxyaabo badanoo howla bay ka hadlaane cidda ugu hadal wanaagsan waxaan u hayaa buu ilaahay inuu yahay ka ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhaya ajiibu daaciya allah kaasaa ugu hadal wanaagsan buu ilaahay oo ugu baaq wanaagsan mar hadduu ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhayo waa fadligii dacwadda nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu la hadlayaa cali bna abi aalib dagaal horkac buu leeyahy laakiin dacwadda ka horreysii dagaalka intaanad bilaabin dagaalka waxay noogu muhiimsan dadku inay hanuunaan inay dhintaan muhiim maahee waxa muhiima inay hanuunaan markaasuu leeyahy cali ow colkan hogaamiyo laakiin waxaad ogaataa laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam geela cascas waxa kaaga fiican inuu ilaahay qof kula sababtaada ku hanuuniya marka hadafku maaha halaage hadafku waa hanuun cali ow taa ogow buu leeyahy cid kastaba waa loogu yeedhayaa si kale haddii loo dhigo waxa uu inagu abaabulayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka helayna inaynu ka faa'iidayno markaynu dadka soo hanuunina maxaynu helaynaa man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacili xadiidkii saxiixa haddii qof qura uu qofku soo hanuuniyo ama aan idhaahna cidduu hanuunka tusiyo wuxuu ka helayaa intay helaan in la-eg iyagu maxay heleen hadday hanuunaan dee waxay helayaan horumar ilaahay abaal bay helayaan adduuniya aakhiraba leh adiguna kii aad hanuunisayba wuxuu helay in leegun baad leedahay koobka khayree loo shubo adiguna mid la midun baad leedahay derajaduu dallaca mid la-eg baad leedahay dembi dhaafku helo mid la-eg baad leedahay yaa kaa laadheeraysanba markaad intaasoo qof hanuuniso waa waxyaabaa dacwadda laga faa'iidayo ujeeddooyinka dacwadda ama ahdaafteeda waxaa ka mida waa irshaadu lbashar bani aadamkii in la hanuuniyo waa litukhrija annaasa min adulumaati ila nuur dadku gudcur bay ku jiraan gudcunkaa laga saarayaa oo gaalnimada ah oo shakiga ah oo nifaaqa ah oo macsiyada ah iftiinka iimaanka loo saaraya iyo diinta waa hadafka dacwadda waxay leedahay markaa dacwaddu aadaab bay leedahayoo dee wax waloo la qabanayaaba si uu quruxsanaado aadaab buu leeyahay cibaadadu aadaab bay leedahay dacwadduna aadaab bay leedahay marka aadaabtaasi waxay u taagan tahay inuu camalkaagu quruxsanaado inuu camalkaagu tayo yeesho inuu camalkaagu taabagalo inuu camalkaagu run eegaado aadaabta waxaa kow ka ah niyad samaan alikhlaas baa la idhaha dee inaad ilaahay daraaddii unula jeedo aad leedahay si aad ilaahay ugu cibaadaysanayso halkanna waa meel kaloo ilaahay loogu cibaadaystee ilaahay iyo dadka ilaahay kusoo hanuunay ikhlaaskaasi aad buu muhiim u yahay cibaado waloo la qabanayaba waxaa aadaabta ka mida qofku inuu is-icraabo mowqicahu min alicraabi fi dacwa halkeed adigu ka dhacaysa macaalimkii baa tahay madaalibkii baa tahay macaamigii baa tahay qofku waa inuu isgaranayaa kaalintu ku jiro qof waa qofkii caalimka ahaa ee masaa'ilka taxliilinayey ee mashaakilka xalinayay qofna waa qofkii daalibka ahaa mushkiladaha qayb xalinayay qaybna u celinaya caalimka qofna waa qofkii caamiga ahaa ee isagu itaalkiisa iyo inta uu garanayo ku hanuuninaya dadka wixii ku adkaadana u soo celinaya dadka ka aqoon badan idan markaa qofku waa inuu isgaranayaa meesha uu kaalintu kaga jira dacwadda ilaa colka waa inuu naqaanaayo qof waa qaa'id qofna waxa weeyaan kii ku xigay qof waa caskarigii iyo qofkii ciidanka ahaa midba meel buu ku jiraa dacwadduna waa sidaasoo kale oo dee kii caamiga hadduu isu kaalintii doono inuu buuxiyo caalimka way adkaanaysa oo marka gurigaa la dhisayo qofba shaquu leeyahy injineerku shaquu leeyahy foormaankuna shaquu leeyahy kuuliguna shaquu leeyahy si hawshani u quruxsanaato dacwadduna waa noocaasoo kale ila binaa baa lagu jiraa asharx alislaami fooqii islaamkaa la dhisaya iyo diintii islaamka marka qofkuna kaalintiisa inaanu ka khaldamin waxay ku jirtaa aadaabta oo markuu nebigu ui balliquu canii walow aaya aayadna ha ahaatee diinta dadka iga gaadhsiiya qof waliba waa inuu ogaadaa kaalintiisa aadaabta waxaa ka mid a inay ragga iyo dumarkuba dee way wadaagayaane iskaashigu uu jiro tacaawun
rag iyo dumarkii waa u taala hawshan ragga qura kuma eega walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله رجي الدمر كيبو لهاي سكو قبته وحوري وتضحك تاهو طلع وانا جاي فرار أو حمانتي جديدا أو عبادة أوجان مركا وانا جاي ولا فري حمانتي ولا جديدة يا دعوة اللفتي جدي بيوتاجنت الكاسان وقبل على النبي صلى الله عليه وسلم مركو كاشري وجوهرين بحاس كيسي خديجة بنت خويلد weynadiisa ahayd kaalin buuxis bay ahaydoo isagay wacdiyaysa cid kala daayo intaan cid kaleba la gaadhin waxyigii u horreeyey markii nebiga lagu soo dejiyey ee uu yaro warwaray iyadaabaa wacdigeedii baabay qayb ku dejisayba qur-aanku wuxuu ina farayaa ana silaaxa dacwati huwa alxikma fi dacwa hubkaad isticmaalaysaad wax ku hanuuninaysa waxaa ka mid a hubka loo yaqaano xikmadda ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة بولا إلى حكمة ده وحلا إلى شيء ولا بماشى كوها بارين دكتور حكمة شيء ولا بماشى كوها بان بعد جيز مركا وحتى هاي طبيب كيا نختارك وكلا نختارك دتك واوين يدتك يرير اسكسي ولا ما هضله اسكسينا ومد وياه اسكسينا ومد بقلا قفبها بكوها بان بولاي مركا حكمة ده سنين إنه جانا ده قرآن كائن فريا si waxa uu hirgalo oo uu taabagalo marka xigmadaas waxa weeye wadcu shay mawdi'a xigmad dacwadu waxay leedahay walaalay asaaliib iyo habab loo maro hababka waxa kamid ah hadalka oo rasuulullah ilaahay wuxuu ku soo diray bilisaani qawmi qoladii uu dacwada gaarsiinay luqadoodii marka luqadeena aynu isku fahmayno ee dadka qaarkood wax ku haleeyaan ee aad ku majaajileynayso ee aad ku ciyaarayso dhinaca kale uu rog waxaad ka dhigtaa inaad dadka ku hagaajiso oo aad ku hanuuniso oo aad wax ku barto waxyaabaha ugu muhiimsan markaa wasaa'ilka waxa ka mid ah luqada waxa ka mid ah qoraalka dadka qaarkood baa qoraalku aad u qanciya ama qiimeynaya ama jecel waxa ka mid ah tiifiyadan waxa ka mid ah barahan bulshada waa wasaa'ilkii la isticmaalayay maanta dad badan baa waxay xiiseynayaan inuu Facebook ku jiro ama WhatsApp ka wado ama qaybaha kala duwan waxa tiknoolajiyada iyo horumarka la yiraahdo dad badan baa xiiseeyo waqtigooda inta badan ku qaata bal waxaad xiiseysaa saacado aad u badan baad ku jirtay meelahaas ama aad guriga ku xidhnaydo aad isaga weheshanaysay maxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu dambi dhaafi karaa halka aad ka geysatay maxaa miisaanka xasanaadka lagu saaraya maxaa se sharax ee dambiya ee aad eedaysaa maalinta qiyaamaha wanaad qiyaastaa intana waxay khayr baahayd intana shar baahayd intana bilaa macna ahayd intana majaajil lahayd waxa khayr kala badi waxa wanaagsan markuu soo maro waxaad gaarsiisaa dadka inaad u sii gudbiso waxaad isku daydaa wixii xuna ka soo horbaxa inaad qofka ka waaniso aad tira ka waad eedaysaa waa sunay adiguna iska daayo habaahinin ee ka joog marka dadka aqoon-yahanka iyo daayirta in fara badan oo kamidii agabka ay gacanta ku hayaan ilaahay iyo diintiisa ha ugu hiiliyaan ka tiifiyahaya ka saxaafad haya ka kabarad haya mid walba waxaan waa record buu galayaa qoraal buu galayaa oo qiyaamaha waa lagu soo saarayaa wax amaanad ku heshaha noqdo maalinta qiyaamaha aanad eedin aadaabta waxa kamid ah tawaafuqul qawli wal amal mar hadaad wanaag sheegayso qowlkaaga ficilkuna ha waafaqo ha kala socon hana kala kacsanaanin laakiin qowl wanaagsan baad sheegtay ficil wanaagsanna ha laga helo arintaasina aad bay muhiim u tahay oo markaas waxa taabagal noqonaya waxa kamid ah sabru ala al-adha aadaabta dacwada inaad dibka ku sabirto dadka qaarkood baan ogolaynba wax wanaagsan in loo sheego ama aduguba aad sheegto iskaga sabir way shaydaanka kugu soo kiciyay marka taasina waa ka ilaahay leeyahay tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr marka xaq sheegto waxa la socda sabirkana inaad ogaato